kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta aad joogtaan boggeena saara subscribe like iyo share walaalaha kalena sii gaarsiiya faalada warka ku xusoos ama commentka nagula wadaago ama hasantahay Sayid Cali Macalin Daawud waa ninkii falka ka geystay naxdinta leh ama argagaxa caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana maanta ayaa waxaa maxkamadda ay soo saartay qaraarkii kama dambaysta ahaa. Maxkamadda ayaa ku xukuntay dil toogasho ah oo ah xukunkii uu mariyay gabadhii Allah u naxariistay oo dabka suray. Xiddigan weyne Sayid Cali Macalin Daawud ayaa caadaystay goysta hablaha Soomaaliyeed ee xurmada leh isla markaana u geystay xanuun iyo wax aan looga fadhiin ragga Soomaaliyeed. Sayidka ayaa maanta waxaa lagu wadaa oo ay taariikhdu tahay 6 bishii 3 2024 inuu macsalaameeyo gabi ahaanba dunidan idilkeed. Sayid Cali Macalin Daawud ayaa ka shaqayn jiray ama noloshiisu ay ku saabsanayd isagoo ka shaqayn jiray madaarka caasimadda Muqdisho. Shaqadiisuna ay ahayd isla markaana ay ku riday maxkamadda dalku dil toogasho. Wixii ka soo kordha tan iyo kulantii dambe sidaas iyo nabadgelyo.